بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد حفيزك امتحاناتك shahaadooyinka agaaska waxbarashada gobolka Banaadir wuxuu halkan idin kula wadaagayaa fariimo muhiim ah oo khuseeya ardayda imtixaanka galaysa sanadkan sanad dugsiyeedka 2020-2021 fariimaha koow waxa ugu soo horeeya ardayda marka hore inay la soo u soo diyaar garoobaan imtixaanaadka si loogu talagalay casharada soo akhristaan sidoo kale waxaan fariintaas kamid ah iyadana sidoo kale in waxaan ku raahday ay ardaydu ay ka soo tagaan waxyaabaha aan la ogolayn ay kamid tahay mobilada ay kamid yihiin jaakaduhu ay kamid yihiin koofiyaduhu ay kamid yihiin waxa kale oo kamid ah inay soo qaataan uniformka loogu talagalay ardayga waxa kale oo muhiim ah iyadana inay wataan aqoonsiga ardayga loo sameeyay oo sawirkiisa xogtiisa ay ku qoran tahay inta marka laga yimaado waxaa jirta waxyaabo kale oo mamnuuc ka ardayga inuu sameeyo waxa kamid ah qish inuu isku dayo ama wax kastoo saacidaya qish inuu keensado sida inuu warqad hore u soo qaato buug hore u soo qaato saacadaha digitalka wax lagu sawiro mobilada waxaas oo dhan waa lama ogola in lala soo galo xarunta guud ahaan ardaydu waa inay telefoonada uga soo tagaan guryahooda oo aanay soo qaadanin arinta kale labaad waxay tahay inay ardaydu xogta markay qorayaan macluumaadka laga buuxinayo ardayga oo warqadda koowaad ay ku qoran tahay inay si saxda loogu talagalay u buuxiyaan waxa jirta arday magacyadooda hilmaamaan roll numberadooda hilmaamaan marka warqaddu waxay leedahay dhowr bookis ay leedahay bookiska koowaad waxa ku qoran magaca ardayga oo afaran waa inuu meeshaas oo magaciisa afaran ardaygu u geliyaa labo waa inuu geliyaa roll numberkiisa dhameystiran oo si cad oo la arki karo waadix u qoran saddex inuu qoranta dugsiga uu ka socdo magaca dugsiga uu dhigto afar inuu xarunta imtixaanka u gelayo intaba inuu ku qora ay muhiim tahay bookiska waxa jira hoos ku qoran macluumaadka oo ah cadeynaya inta bog ay imtixaankan ka kooban yahay inaad iska hubiso numberka meesha ku qoran bookiska sidoo kale aad tiriso warqadaha tirada kor aad ku soo aragtay ma ka koobanta warqadani haddii wax isbedel ay jiraan oo inaan warqadani inta number ay ku qoran ay meesha ayna kugu cadeyn warqadihii waxaa laga rabaa inaad la wadaagto ilaaliyaha fasalka ilaalinaya isagana ka saacidi doona warqadii saxda ku sii doona waxaan isleenahay marka insha Allah taala ardada hadii ay fariimaha ay si loogu talagalay u qaataan inay wax dhibaato ayna la kulmi doonin oo caqabadihii inuu arday warqad ka lunto ama la aqoonsado warqado kale iyo ay meesha ka baxdo wax kastoo caqabad u keeni karaan ay meesha ay iska ilaaliyaan waxa kale ayadana muhiim ah inay waqtiga ilaaliyaan imtixaanku wuxuu bilaabanaa 2 subaxnimo ama 8 subaxnimo sida qofka u taqaano in xilligaas ka hor waqti kugu filan aad timaado oo waqtiga inta wadada ku soo jirto inta baaritaanada aad marayso inta aad ardayda la fariisinayo taaburka lagu jiro ama fasalka la fariisinayo waxyaabahaas oo dhan inuu muxuu ah sheeg waqtigaas aad ku xisaabtanto oo waqtigaas soo ilaaliso waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaad marka hore aad deganaansho muujisaan fahantaan su'aalaha aad akhrisan oo fahantaan kadibna muxuu ah sheeg aad ka jawaabtaan waxaan idin rajaynayaa guul حفيزك امتحاناتك shahaadooyinka agaaska waxbarashada gobolka Banaadir markasta wuxuu idin rajaynayaa insha Allah taala guul iyo inaad dhibco fiican aad ka keentaan imtixaanka insha Allah taala aad ku baramoostaan oo aad dhibco fiican la timaadaan waxaan rajaynayaa insha Allah taala sanadkan inuu noqdo sanadkii taariikhiga ahaa oo ardaydu dhibcaha ugu badnaa ama ugu fiicnaa ay keensadeen dhibco ayaga ay ku farxaan waalidiintooda ku faraxdo macallimiintooda ay ku farxaan aadaan idinka mahad celinayna insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaad dadaalkaas aad wadaan sina laba jabaari doontaan xafiiska imtixaanaadka markasta wuxuu idin rajaynayaa guul iyo inaad dhibco fiican keensataan imtixaanka assalaamu calaykum warahmatullahi taala barakaatu